من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا ولا ألهك عنه أنيق روض الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وجعل من فطرته الزوجية، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد الهادي إلى شريعة الحق والأمن والأمان. سيدا هوري قبلها ولا لها يوشيغين به قولك اي فلنغيين لنعيدي سيدان أهدافتيس اي ثمرات كيس ايو وحو معناها خسارة ديس ايو كل معنى خسارة او كل مادة اي فلنغيين عنو انواع لما يستريا كليا عنو حانك هذا يا ان شاء الله تعالى قولك قبلها الصوماليات dhibka kaga yimaada dal iyo dibadba markaan soo qaato macnaha dalka waxyaabaha hadda laga dhawaajiyaa ka mid ah gabdhaha dhibka hayo ay nimanka ku hayaan oo macnaha garoobadii ay bateen maxaa dhaliyay marka waxaa dhaliyay sida la sheegay diin la'aan oo diintii lagu dhaqmaynin iyo sabarkii oo diinta ka mid oo la haynin iyo معنى الزوجية إلا فهم سنين أي نمنكو فهم سنين دين هذا أما يوسان هانين وحاد مودعين يبقوبتين رقا لنعاس سيدنا شافتي حمدي ولا شين نمنكا وحاسوستو إنه انت ناكو غبو دلك معنى اسم دلكي حافتك لأوكو غبناك لي أو قرسان قرسودي المحيدين تكغبتا قرسودي الدين معنى قول لك ريو نبي عليه الصلاة والسلام لقوم النقلين متعائي وحلميد ايو وحجاهيد يكون نقم تشرين وي مركا قول كاس مبنانا واي قول كهلا اعلامي ويرمي ورسولك هلا قرية مؤسن بهم واي اوبد ايه النسلة كدالان دون ميشا مركا ان لإلالي والاحترام على الربا وودد الهي ودتشيهي سبحانه وتعالى ان الرعو مركا اوسا نقضو قبلهن ودالك قروبا ايه كوبتين waxaa dhacday nin ayaa gabar noo dirsaday gabar markuu noo dirsaday markaa meesha ay gabdhaha iskugu tagaan masaajideedii aan tagnay oo bal arrintii bandhigno dad u dirnay waxay gabdhihii yaraa garoobay wada yihiin wiilku wuxuu rabaa gabar aan garoob ahayn ayagaana garoobeey oo maca daalika waxay raadinayeen gabar oo bikra ah ay raadin ayagaana sabab u ah inay garoobeeyeen saasayna gabdhahayna yar u dayaceen ragga ilaa amaam allahi halkay geli doonaan raggii ayaga ahaa taa waa tan dalki weeyaan waxaa kaloo dhacday dibadda nina inta ilmo iyo naag xaas uu qabay iyo ilmihiisa uu dibad u dirayaa asoo kaga cararaya biilka inuu meeshaas kaga xarayo muudaa goormee qawaamadii ilaahay saaray goormuu macnaa uu laga nasaka asoo goormee laga wareejiyaasa ka wareejiyey qiyaamo ilaahay hortii muxuu la tegi doonaa intuu ku qabaa xaas iyo ilmo wuu diray dibadduu u diray markuu dibaddu u diray sidii macnaha ay ilmihii iyo meeshii gaalo la wareegtay waxaa kaloo jira nin oo asagana sameeyey intuu xaas ku qabaa iyo caruur wuu ka tagay xagguu uga soo shaqaystaa biilkooda wuu u soo diraa laakiin 2 sano iyo wixii ka badan ka bacdi uu yimaadaa fasax iyo wuxuu ku imaada ma aqaane marka sidaas uu yimaadaa waa garan kartaa culeyska ku jira meeshaas waxaa jirta nin oo dibadda inta tagay oo gabar kuursaday system ajir iyo nidaam ay dawladdu walba ku dhaqan sidaa ogtihiin systemka isaga ah uu geliyay gabadhi waa computerka inay xaaskaaga yaa gelinaysa waa lagama maarmaan tu kaloo isla meesha ka hel haddana uu guursaday taa waa tii qarsooneed marka waa laba naag ma ongola gaalada taa waa tii qarsooneed xuquuqdeeda iyo kulli la ooba haysano qarsooneed caruur buu sidii dhuumasho kaga dhalay ayadan waxaa loo haystaa inuu boyfriend qabo inuu boyfriend ilmaha kaga dhalaa loo maleeyaa
nas intaa waxaa kasii daro khasaaraha weyn ah adduunya aakhir way kala badan yihiin hadday gabadha si noqoto ama ay dhimato gabadha ilmahaas dhashay ee qarsoonayd ilmihii asaga hadduu intaan yahay ma helaayo gaaladii baa tootali la wareegaysa waa eegaa nafaqayn jireen marka walaalayaal intaas oo dhib ay wax ka daran aad jiraan marka anoo ku dheeraanayno qodobadeyda markaa dal iyo dibadda saas uga hadlay walaalayaalow allah subxaanahu wa tacaala waxaan ognahay inuu saaray ragga qawaamada guriga inuu saaray gabadha mas-uuliyad way saaranta iyo ragga way saarinaa qawaamada wuxuu gaar ahaan ilaahay u siiyey ragga isweydiinaya goormee ragga waxaa weydiin iga oo su-aal u diraya ragga goormee qawaamadii ilaahay idiin saaray oo ehelkiina idinka saaray goormee idinka wareegtay yaase idinka nasakhay marka taa markaan ka soo gudbo walaalayaalow way dayaceen caruurtoodii bay dayaceen kii 2 sano laga maqnaa ama 3 sano oo loo yimid markaas ka bacdi waa ogtiin dhibka jira xuquuqdii aaway gabdhahan fursad siinayna qofkii talo ama fikir magacaygu waa Saynab Cabdi Seeraan الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم walaalihii inoo muxaadareeyey muxaadarada qayimka ah ee guurka ku saabsan waxaanu leenahay jasaakum allahu khayran wa khayru jasaa wa afqala allahu fi miisaan xasanaatikunna wa axsana allahu ilaykum yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbi saliim wa bacdu waxaa laaleda wixii guurka ku saabsanaa walaalihin baa noo sheegay ilaahay khayr badan oo xasanaadaha ka siiyeen guurku sidiisaba walaalayaal waa mas-uuliyaddaasoo saaran ninka iyo naagta isguursanaya mas-uuliyaddaa haddii la gafo waxaa waaye labadii qofba way ka hoos baxaysaa mas-uuliyaddii rasuulkeenu salawaatullaahi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi wa anaa zaciimun bibeytin fi laclaa liman xusina khuluquhu yaan u ballan qaadaa buu yidhi rasuulkeennu ciddii akhlaaqdooda iyo dabeecaddooda ay wanaagsanaato waxaan u damaanad qaadayaa buu yidhi bayd jannada korkeeda ahaaday baydkaa jannada korkeeda ahaaday maxaa lagu helayaa waxaa lagu helayaa markaad akhlaaqdu wanaagsanaato dabeecaddaadu wanaagsanaato qof dabacsan aad noqoto nin aan dabacsanayn oo reerkiisiiba u dabacsanayn iyo gabadh aan akhlaaq lahayn maxay keenayaan maxayse iska dhalayaan awlaadaan sax ahayn bay iska dhalayaan kuwaan hadda subarbawarka noqday iyo waxaan la garan waayay bay iska dhalayaan laakiin gabadh muslimada oo diinta ilaahay ku dhaqmaysa oo dabacsan iyo wiil muslima oo sidii ilaahay raxmadii uu ilaahay sheegay laga helay wuxuu keenayaa awlaad wanaagsan iyo mujtamac wanaagsan sida la ajrigeed waxaa la rabaa gabdhaha muslimaadka iyo ragga muslimaadkaba in ay la yimaadaan akhlaaq wanaagsan iyo dabeecad wanaagsan si ay mujtamac wanaagsan ugu yimaado meesha marka hadda la fiiriyo Soomaaliya wadankii burbura ka dhacay shalay wadanku wuxuu lahaa xeerka qoyska haddii ilmahan dayacmaan haddii ninkii naagta isku xadgudbaan meel loo dacwoodo iyo dawlad xakameynaysaa jirtay dawladii ma jirto booskeedii dadka in ama hala tahriib ama hala dhoofay dibadaha la galay ma la dhihi karaa guurka laftirkiisa dhoofka horta dhinac buu ka baabiyo oo fudaydka buu ka keenay maadaama ninkiiba waxa laga yaabaa 10 caruur iyo 20 iyo 30 iyo 5 naag wuxuu qabayba qurbihi haddii la galo dawladda u biila shaqada inta taga wax ma biisho mas'uuliyad darrada qayb ma ka tahay burburka faraha badan ee nagu dhacay iyo dhoofka dibadda ee dawladaha ilmaha ay u korinayaan dadka inuusan ninkii shaqaysan reerkiisa uusan beelin uusan garanaynin mas'uuliyadda qoyska uu ku lahaaba kulley burburka guurka iyo saasoo kale oo awlaadii la dayacay oo haween badan awlaadii lagu dayacay dabcan waxay ku kadhiftay inay tarriibaan ama UN-ka inay ka wareegtaan sababtoo ah aabihii baa ihmaaliyey marka haddii xagga tagaan dabcan ayagoo macnaha dad systemkeena islaamka camal oo lahayn weeye oo islaamnimo ku dhaqmaynin laakiin balse oo wataan micnihii iyo wixii weynaa ee islaamku laga rabay inay ayaga haystaan ilmihii ayagu way qaabilayaan way dejinayaan nafaqo iyo wax walba way u qorayaan taa macnaha kulley sababta ku jirta iyo waxa hoos yaallana alla og laakiin saasaa micin doon ay bideen dadkii way tarriibeen ama badaha ku dhammaadaan haweenkii ama macnaha allaha badbaadaan ayid nadax ku kabaysiinayeen jawaahiriyo ninku markuu wax biilan lahaa oo nin wax qab ahaan lahaa hadiiba loo biilay
mislada halkaas wax ka dhumeen maya waxa weeye horta hore sida aan la socono mas'uuliyadda horta hore ninkan ama ha loo biilo ama yaan loo biilin asagay saaran tahay marka koowaad marka labaad haddii dhulkaas la tagay say ay noo sheegtay Maryan Shariif waxa weeye horta hore qofka waxa loo ogol yahay in loo qoro hal naag kaliya waayaga sharciga ay degsadeen naagihii kaleeto oo haduuba meeshii uu geeyo uu ku qasban yahay ninkii inuu u shaqeeyo mas'uuliyadiina qaado oo laanahu mas'uuliyadan midaan loo biilayay midaan loo biilaylinba waxa ka qiimo badan qofka nacam wixii uu shaqeeyay markaas qofku waa xor diinteena anaga kama soo horjeedo dumarkan badan laakiin ayaga diintooda maadaama ay dad gaala yihiin midaas ka badan lagu qorimayo marka ma u malaynayo inuu maaragtay nafaqayntii uu nafaqaynayay iyo mas'uuliyadii ay lahayd inay ka qaadayso meesha uu tagay darteed ragoo dhanna ma aha rag waxaa jira dhowr naagood qaba oo meesha degan oo u wada shaqaysta inkastoo ay adag tahay dhulka markii la degan yahay ay aad u adag tahay ilmihii inaad caawintid ilaan meesha shaqaale ma joogo ilmihii waa inaad iskooladooda noloshooda ka warqabtid ay yara adag tahay laakiin haddana kama dulqaadayso waxaan rabaa inaan wax yar tacliiq ka bixiyo xeerka qoyska hadda ma u malaynaysaa xamdi burburkaas maanta Soomaaliya haysta inay tahay xeerkii loo dejiyay ee aan Ilaahay kitaabkiisa ahayn burburka maanta Soomaaliya haysta iyo dawlad la'aanta iyo masiibada ay dhashay dadku waxay u maleeyaan inay tahay qabiilkii 91 ma aha waa xeerka qoyska markii la sameeyay ee la dhahay dumarka iyo ragga way siman yihiin Ilaahay wuu simay waa insaan إنسان لماذا إلهي أبورسته وكسمي إلهي سبحانه وتعالى لكن قف والبوحي وكفي عنا الله أبوري باسي مثلا قبل مهر إلا ذا نك مهر موليه إلهي سبحانه وتعالى نك قوام نما لسيه وللرجال عليهن الدرجة لا محن منك وهوانتا وليه وقرنا في بيوتكن قرقي لجوج المين ما عرفت إلى عشرة محلات هاي إلهي سبحانه وتعالى من والبا إيساقبا مهركي إلمها النوالا وضع دالي شهبدا نوالا وضع قلت حدنا قبل مهر دير هذا للسي حدنا قرك هذه بأن فقد إيساقا قرك هذا لقصاري حتى هدي مال لذا إيساقا قرك لقصاري وحان قبا أنيقا حيركي قويسك إصوماليا بربر كمان تتاقن إنو السبب ويهي أرنتا إنها تهريبتا شبابك هوق بقى مقفها وحاصدن أبارتان حتى التاقن إلهي لذهي لأنها إلهي سبحانه وتعالى ودل بذيهي لكن مركو إماده إن أخذه أليم شديد مركا إلهي سبحانه وتعالى أن طابت كانوا كتاب كيسو إلهي نوسو دجي قوامين توس إلهي نوسو دجي رسول كان عليه الصلاة والسلام بانو بيانيه إلهي إنان كل قنو أن دينتين إيمان سنو إلهي بان أرزاق دبحية إساقا أنا ما أركت إعابود دهي مالكست أن جوغنا حتان آمنو والله كل قنو قريها كبلاونو وحان هبا إن دولد إيو وناق إيو شرف نمدي صوماليا إيو كرامد إني سونو قنيس firdowso ma dhihi karnaa guurka horta siisaba maadaama gabdho culimada aad tihiin wuxuu ku wanaagsan yahay in la adkeeyo oo qofka markuu wax guursanaa horta lagu dhibo si furiinka loo xadado guurka hal la adkeeyo dhibaato macnaha hadalkaas iskama aadan dhigine dhibaato maaragtay ka dhalatay ayaad u tiri waxa waayay Soomaali waxay tiraahdaa oonka waxa keenay oraxda waxaan u malaynaa culimo waaweyn culimadina soo wax bartay way nool yihiin way joogan badankooda arintaas inaan dib oo la noqono oo culimada aan ma aragtay aan wax ka soo weydiino ayay kalifaysaa marka guurka laga hadlo rag waxay yiraahdaan afar baa horta waxay dumarka ku baasleen afar baa alla noo baneeyay guurkana sidiisaba واجب دينيا ما أهن قفك وأنا جورسن كرا وأنا سكدين كرا قف عذاب يجنكم متيسنا ما لم حق جورسن وذا وكل آخر الأسود دين مايو إن مركل الله في ريو وحنا أقبضن ولا ده أما علماء وحبرتي حقا وكر جبرين يكون كلا وكذا خال بدينهن وحلاقي أبا ملب كودي حبت سودة ودي دخلوا ذن وبدينها وحرك كرينا كهر ريان أمر ليسا نمكن وحلاقي أبا إنه بلود ليه ما شو ناك كقب صدق ناك بلود أبا كبدنبو أو مسؤولية كلا سارن ولا يسكوه إن فرين كفرها بدن علماء أو بدن نفتر كذا أسقو دينتي برتمركو ما أنت قبل عن فرو برميت كلا فرو أفر يشن كلا برب دمرك أسقو سامري دينتي وبرت أو مسؤولية دي حقيقة نورتو إلهي سبحانه وتعالى إن
maxayto wuxuu sheegay nabiga calayhi salaatu wasalaam adeerkii asagoo faallo oga bixinayo innaka laa tahdi man axbabta walaakin allaha yahdi man yashaa dhibaatooyinka way jiraan boqolkiiba 80 way jiraan dhibaatooyinka aad sheegayso xamdiyey balse waxyaalahaasoo idil markay yimaadaan sidaan aan ku gabagabeeyey hadday khidaabkaygii allabari baa looga baxaa allabari in looga baxo ma dhihi karno gabdhayo wadaadadaya idiin soo dhawaanin ma dhihi karno mana dhihi karno wadaadadii oo idilna dembi ma wada saari karno maxaa yeele waxa waaye wadaadada waxa waaye waa indhihii mujtamaca waxay dhahaan culummo qiil ma weyse adigu qaalin ma haysa marka xataa saddexdii markii la isku furo qiilkii way u keenayaan marka waxaa waaye culummadeena ilaahay soo hanuuniyo kuwii howlaha ku dhex jira wadankii burbura ka dhacay noloshii qofba meel ay ka gashay waxaa laga yaabaa in dadka aysan isku meel daruuftii u helin inay ku wada noolaadaan horta sharciga islaamka maxay ka qabtaa kala maqnaanshaha safraha badan muddo intee la eegaaso diinta ogashay in labada qof ay kala maqnaadaan diiniyan bismillaah kala maqnaanshaha waxaa waaye labay noqon kartaa mid duruuf ay ka kaxayso oo qofkii sidii hadda Salama oo kale radiyallahu anha markay soo haajirayeen asxaabta haweenkoodii waa soo haajireen diintaadii markaa la haajiray sidoo kale waa kala tagi kartaan wadankii maxay toole markii dhibaato sideenoo kale wadankeena ee uga dhacdo burbur iyo dhibaato hadda qoys isla wada nool ma jirto caruurtii aabihii kulli waa duruuftii kala kaxaysay laakiin haddii uu qofkaas kas iyo maag iyo maxay tal xuduudi ilaahay uu jaraya haddii uu 6 bilood ka badan ma maqnaan karo ninka sharciga islaamka kama maqnaan karo haweenkiisa yani ilaa ay duruuf inay isaga raali yihiin ma ahane 6 bilood kaliya loo ogol yahay inuu ka maqnaado ijaabo waxaa soo batay guurka qodbasirada saa hore u sheegnay horta diiniyan ma xalaal baa ma soo xaaraan أنا أملين معي من قد بصيرة سومالي ده مجا عسكر بحسام هنا جبرها نكاح لو حير المجرتو نكاح ود على هو الآخرين ها مركا حدين لقرية كل يبو قريس كاس لقرية أنا وحي إلى هاي إن نكاحي هدور دعي قريس كان لقرية لبض قفوا إسقاط إسقاط رالئة هدي سنجبت الرالي كأهين لما قريين أنا سئلة هاي مسكحيا أهم تاسن علماء ذاك جوابي علماء دي واجبته قد بصيرة ده هرتوا على mid waxa waaye mid ay raggu naagooda ka baqayaan gabadhii waligeedii la weydiisay laakiin naagta laga qarinaya waxa la leeyahay cid miyaan loo sheegin meel buu dajisanayaa maalintii hadduu doono markuu shaqada aado ama salaada subax markuu soo tukado buu imaanayaa wuxuu la joogayaa ilaa 2 saac 3 saac masaajidkan quraan ku soo akhriyo oraya hadhow xaaskiisa aadaya midina waa midaan banaanayno kaas ma banaano oo waa qudbasirada la sheego oo ay nimanku qarsadaan sida la ajreedkaas waa xaraam laakiin kan kale waligeeda la weydiisay naagta uu buu ka baqayaa mooyaane reerkoodii uu weydiisay wayna banaan tahay laakiin tii la guursadaa dib ku qabto haday xanuunsato iyo haday umusho midna lama oga kaligeed baa qolka haday habeenkii xitaa qolkii ku meedo cidima oga haday xanuunsato kaligeed baa dhakhtar aadaysa oo wax qarsoon laakiin diinta uu ku banaan yahay waligeedii uu weydiistay hadii aan ka hadalno su'aashii aan weydiisay wuxuu ahaa xukunka islaamka ka qabo qudbasirada maxay tahay saddex qaybood oo culimadu u qaybiyeen qayb waa kii gabadha ay ka hadashay laba qayb gabadha ayaa ka hadashay oo waxay tiri mid waa inaysan ka warqabin ehelkii oo cid ka warqabta jirin walina ma oga nikaaxaas waa baatil sida culimada ay rasheegaan inkastoo qowl oo aad u xoog badan uu leeyahay gabadha rin way guursan kartaa kan labaad oo gabadha ay ka hadashay waxa waaye in waxa la dhahaa ehelkii ogyahay laakiin naagtii uu laga qariyay kaasna imaamu axmed naftiisa wuxuu u kala qaybiyay culimada laba u qaybiyeen imaamu axmed wuxuu diiday in la qariyo guurka aslan oo wuxuu sheegay iclaanu nikaax baa guurka loogu talagalay waa in la ogaada culimadana waxay dhahdaa qayb ummadda ka mid ah hadday og tahay intaasaa kaga filan iclaan oo in shakhsiga walba uu ogaado qasab ma ah marka wixii maslaxa loo qoriyay muddo muayana oo muddo waqti gaaban ah dib ma leh laakiin in la dhaho gabadha weligeed ba qarsanaato sida gabadha ay sheegtay dib ayaa ka imaanay islaamkana dibka ma ogola la darar wala dirar wax kasto oo dib keeno waa in la zuuriyo dibka adrar yuzaal maadaama guurkii haduu dib ka imaado mid lagu degan yahay oo nafti ay ku xasilan tahay ma noqon doono sida darteed waxa ka ratibmaya noocaas guurka ka mid ah in aan la aqbalin oo la joojiyo oo islaamkana uuna ayideenin waxa jira guurar laftirkooda shuruudo ah
waxaa laga yaabaa laba qof isjeclaatay waa la sheekaystay inkastoo hadda nimanka hadda joogaba guurkaba ay gogasha u fahmeen qaarkood oo guurkaba loo maleeyo inuu intaas la ku egyahay muddo isqabaynaa 5 bil 3 bil 2 bil haddaan isfahano oo labadanada aan isfahmi karno oo dad isfahmaya aan noqono waa dheeraysan karnaa guurkaas laftirkiisa shuruudda la isku guursanayo maxay diintu ka qabtaa guurka xaaraan waay nikaaxa mutca la dhahaa xaaraan qadci waay la iskugu iimaanay ninku haddii la guursado inta dhacaysanay guriga ma ka xidhin karaa horta ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu dhahay quraanku ku sheegay waashiruhunna bil ma'ruf wuxuu amray mu'ashara xasana dhaqan wanaagsan dhaqanka wanaagsanna waa laba dhinac inuu ka imaado hal dhinac kelima aha haddii aad xanaaqsan tahay waxaa wanaagsan in kala hadashid arrinkaas oo aana ka codsatid inaad adiga u baahan tahay inaad nasatid ama aad ka maqnaatid muddo si mushkilada loo xalliyo laakiin ma aha guriga iiga baxi iyo ina adiga ka baxdan kuma banaan ina asaga bixsan kuma banaan sharcan laakiin wixii la isku afgarto aad dhahdo aniga sidaan dareemaya xanuunkan ay ahaay waa ma sirsanahay dibna ma aha ina ka sheegtid sada ina sheegtid sida dareemaysid waxaan u baahanahay inaan nasto waqti isi taas haddii uu ka ogolaado inuu guriga ka baxo iyadoo lagu wada heshiiyo dhib male haddii adiga uu ku ogolaado inaad baxdo muddo kadib aad soo noqotana dhib male laakiin in guryaha lagu burburiyo sabab ninkii naag labaad uu guursaday anigu u arkay xal inay tahay waayahay intaan barnaamijka soo gabagabaynin gabdha yar yar barnaamijka inta badan nagala qayb galaayo oo laga yaabo qaarkood inaysan wali guursan adduunyada waa u hor leedahay ninna waa rabaan iyo inay aroosaan maxaa talood siin lahaydeen horta gabdhaha si u noqdaan gabdho wanaagsan oo qoys islaam ah oo wanaagsan oo Soomaali ah uu soo baxo horta gabdhayahow waxaan idinku talinayaa horta midda ugu horeyso ilaahay cabsidiisa ayaan idinku dardaarminayaa xoogaago waxaad moodaa ilbaxnimo casri inayna soo gashay gabadheena haddaan caroodo macnaha haddaan masayro ninka guriga ma ka cayrin karaa tiiba waxoogaa aan daba socda horta ninka ilaaha qawaamo siiyey inaan ma artay aan mas-uuliyadiisa inaan u ictiraafno guriga asaga iska leh asaga maxay tahay yaa mas'uulka ah nin guriga mas'uulka ka ah hadii la dhaw laga cayrin meesha dagaal xun baa yaala marka inaan mas'uuliyadii aan ogolaano nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiraahdaa qof bini aadan aan u sujuud dhihi lahaa haweeney ayaa waxaan dhihi lahaa ninkaaga u sujuud meeshaas ay jirta arinta horta meeshaas ay idiga jirto hadii ma artay ninkii uu kugu xumaadana waxa la rabaa inaad ilaahay ka barido nabiyullaahi ibraahim marka idima badinay laakiin example u soo qaadanaya markii maxay aheeto ay gaaladii ay dabka ku rideen muxuu yiri ilaahay subhanahu wa ta'ala ya naari kuni bardan wa salaaman ala ibraahim ilaahay oo ninkan xunka oo dhibka badan oo marka hore nin fiican iskaga kaydhigay oo sidaa ku guursaday oo haddana markii dambe ila soo baxay through kalagis ila soo baxay trukalagis ila soo baxay oo macna wajigiisa iga qarsoona waji kale ila soo baxay ilaahayow adiga bardi iyo salaam iga dhigi kartaa horta waa inaad tiraahdo gabar muslimada ah maxaa yeelay waxaan meesha ka bixinay wax maqaadiir la dhaho gabadhaha horta inay isku kalsoonaadaan kalsoonidooda iyo self esteemkooda inay kor u qaadaan inay haday guursanayaan ninka ay guursanayaan reerkooda ay u keenaan laga fiiriyo haday reer ku yiraahdaan ninkan nin fiican ma aha ilaa waalidka wuu ka garasho dheer yahay wuu ka weyn yahay in uu yiraahdo ka istaag inay waalidka warkooda maqlaan gabdhaha guriga leh waxaan ka waaninayaa nimanka markii ay guriga yimaadaan oo shakiga iyo shidada lagu ibtilay ninka markuu teleefankiisa komadiinka saaro inta qaadid ha fiirinin oo ha dhihin yuu la hadlay yuu fiiriyay wax walbo ilaahay ka qiriyay qiimo iyo wanaag baa ku jira من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا ولا ألهك عنه أنيق روض